goobtan uu ku dhex lugeynayo madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waa deegaanada Sabiib iyo Caanoole ee gobolka Shabeellada Hoose. ciidamada xoogga ee dalka ayaa halkan dhawaan waxay ka saareen kooxda al-shabaab. madaxweynuhu waxa uu ku dhex lugeeyay dhufaysadan kala duwan ee ciidamada xoog way ka sameysteen deegaanadan isagoo warbixin ka dhageysanaya taliyaha ciidanka lugta General Odawa oo halkan joogay. taliyaha ciidanka xoogga dalka Sarreeye Gaas Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho ayaa sheegay inaanay dhici doonin in ciidamadu halkan ay ka laabtaan. sharaf bay idin tahay in madaxweynuhu idinku soo booqdo idinkoo difaaciina hore iyo bartii hore jooga. runtii waa wax markasta aan la heli karin oo taariikh ah. marka waxaan aad iyo aad idinku boorinayaa inaad ka dhabaysaan rabitaanka iyo waxa la idinka filayo ee dhammaan madaxweynuhu idinka filayo, annaga idinka filayno, dhammaan xoogga dalka Soomaaliya idinka filayo, ummadda Soomaaliyeedna idinka filayso. dadka magaaladan jooga dhibaatooyin badan baa ku dhacday, 10 jeer baa unimi waa ka noqonay, markaa ma noqonayn, lagama yaabo inaan noqono. madaxweynaha ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa goobtan u yimid si uu wax badan uga ogaado xaaladda ciidamada iyo xoojinta howlgallada dalka looga sifeynaya al-shabaab. waxa uu bogaadiyay ciidamada goobtan ka saaray al-shabaab isagoo kula dardaarmay ciidamadan in shacabka ku nool deegaanadan laga difaaco cadawga. hambalyaan idin leeyahay guushii aad ka soo hoyseen inaad ka adkaateen cadowga ummadda Soomaaliyeed intaasoo sano soo dhibaayay inaad ka adkaateen oo aad kaga guulaysateen oo idin babac dhigi waayeen oo ay iska kiin maxaan ku difaaci waayeen markaad meeshaan timaadeen waa cararay Soomaha waa dhaqankay leeyihiin. marka waxaa loo baahan yahay sidii aad magaaladan uga erideen Sabiib iyo Caanoole aad uga erideen oo aad uga adkaateen inaad u difaacataan magaaladan shacabka magaaladan degan oo muddo dheer ay gumaysi ku hayeen aad ka difaacdaan. madaxweynaha ayaa sheegay in howlgalkan uu sii socon doono ilaa inta al-shabaab meel ka mid ah Soomaaliya lagu sheego, waxaana uu kula dardaarmay ciidamadu joogteynta howlgalladan si aysan kooxdaasi fursad ugu helin maligidda qaraxyo ay la eegtaan shacabka. marka waxaa la rabaa inaad soo jeedaan, inay seexan, inaad meeshay joogaan aad ugu tagtaan oo aydan halkan ku sugin. haddaad soo jeedaan ood u diyaarsan tihiin inaad difaacdaan shacabkiina, inaad difaacdaan idiin soo bawac dhigi maayaan. waa fulayo waxay yaqaanaan inay shacabka qarxiyaan, inay carruurta laayaan, laakiin wiilal idinkoo kale ah marna hortiin ma imaanayaan, mana idin soo wajahayaan. maxaa yeelay waxay og yihiin inaad la hortaagan tihiin geesinimo. magaaladan kama tegayno keliya maaha, waa soconaynaa, waxaan ugu tegaynaa meel kasta ay joogaan. annaguna waa idin garab taagannaha, ma maqlaysaan? annaguna waa idin garab taagannahay, waa idin soo booqanaynaa, ciidamo kale idinku soo kordhinaynaa, waa bacsanaynaa ilaa ay tirtirmaan. marna ma yeelayno, marna ma u dul qaadanayno inta ay meelahan ka tagaan oo ay ku samaystaan wixii la qarxinayay oo ay maatida iyo carruurta ay maxaan ku raahdaa ku laayaan oo hantida ku burburiyaan ka yeeli mayno. ka saarista goobtan oo ah deegaanka Sabiib kooxdii al-shabaab iyo kuwa kale oo ku yaala gobolkan Shabeellada Hoose kuma iman si sahlan, balse ciidanka xoogga dalka ayaa si qasab halkan uga saaray al-shabaab dhawaan, waxaana ay dadka iyo deegaankanba ku hayeen dhibaato badan. madaxweynaha dalka ayaa booqashadiisa maanta deegaankan waxa ay qayb ka ahayd sidii uu waqti ula qaadan lahaa ciidankan xoogga dalka ee halkan ku yimid dagaalka si uu u dhiiriggeliyo howlgalkan mid la mid ah oo deegaanada kale ee weli gacanta ay ku hayaan looga saaro kooxdan. Cali Baashi Cabdullaahi, warbaahinta qaranka, deegaanka Sabiib, gobolka Shabeellada Hoose.